Assalaamu calaykum. Badanaa waxaad baraha bulshada ku aragtaa dadyow badan oo ku dhahaya si degdeg ah lacag la samee maalintii $600 samee iyo waxyaabo la mid ah. Haddaba waxaan kuu sheegayaa maanta waxa ka runa waxaas ka beena iyo sida isaga ilaalin karto propagandadaasi. Lacag kasbashada online-ka waa arrin xiiso leh, dad badanna waxa ay ku riyoodaan inay mar uun ka sameeyaan lacag. Haddana waxaa jira dadyow badan oo dadkaasi siyaabo khaldan ugu turjuma waxa dhacaya ama waxa saxda ah online-ka ka jira. Waxaan maanta mid kula qaadi doonaa xirfadaha lacag ka samaynta online-ka iyo sida saxda ah ee looga sameeyo. Waxaan intaas sii dheer in anagu ku noolnahay Soomaaliya oo ay ka mid tahay wadamada aysan dhanka online-ka fursadaha badan ka jirin. Taasina micnaheedu waxay tahay in waxyaabaha ugu badan ee online-ka lacagta laga sameeyo aysan Soomaaliya ku shaqaynin oo aysan ogolayn, maadaama Soomaaliya ay tahay dal Afrika ku yaala haddana burbursan. waxyaabahan Soomaaliya laga ogolayn adoo jooga lacag ka samayso ama markaasi bangiyada Soomaaliya aysan kuu suurtagelin waxa ka mid ah online-ka sida website-iska iyo sidoo kale Facebook-ga iyo sidoo kale YouTube-ga. Taas beddelkeeda Facebook waxa uu dheeryahay in Soomaaliya aadan waxba ka soo dhigi karin ilaa isticmaashid mooye abab gaar ah oo loogu talagalay oo markaasi location-kaada beddelaya ama qof qurbaha jooga uu kuu soo dhigo ama Kenya ha ahaato ama sidoo kale wadamo dhif iyo naadir oo Afrika ku yaalo ha ka mid ahaadaan. haddaba yaana war idinku diyaarinay ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta. waxaan rajaynayaa inaad wax badan ka faa'iidi doontaan. haddii uu muuqaalkan ku qanciyana saaxiib subscribe isaal mahadsanid. haddii aynu ku bilowno xirfadaha ugu muhiimsan ee lacag ka samaynta online-ka, waxaa loo kala qaadaa laba qaybood oo kala ah xirfadaha long term ah ama waqti dheer u baahan iyo sidoo kale xirfada short time ah oo waqti gaaban u baahan. haddii aynu ku bilowno xirfadaha waqtiga dheer u baahan ama markaasi long term-ka waa xirfado aad u adag markaasi ayna muhiim tahay inaad joogtaysid. ogowna wax walbana joogtayn ayaa ugu muhiimsan. xirfadaha waqtiga dheer u baahan ama long term-ka waxa ugu muhiimsan in aad leedahay website isla markaana aad ku soo gudbisid maqaalo kala duwan. wayna adag tahay inaad markaasi dadyow badan ku soo xirto website-kaada waqti gaaban oo ay bartaan isla markaana ay halkaasi ka daalacdaan maqaalada aad website-kaada ku soo gudbinaysid. haddaba waxaad isweydiinaysaa sidee ayaa lacag uga samayn karaa haddii aan website-kii ku soo gudbiyo maqaalo kala duwan oo ay markaasi dadku xiisaynayaan. siyaabo badan ayaa lacag looga sameeyaa oo kala duwan website-ka marka la joogo. haddaba waxaan halkan kugula wadaagayaa midda ugu muhiimsan oo ah in markaasi aad shirkadda Google AdSense had ka dalbanayso inay markaasi xayisiin kuugu xirto website-kaaga isla markaana aad website-kaada lagu xayisiinayo alaabo kala duwan. qofkii hal mar kili ku siiya ama markaasi xayisiintaas furana lacag ayaad ka helaysaa. ogowna way kala duwan yihiin oo qof Soomaaliya jooga haddii uu klik siiyo xayisiinta website-kaaga iyo qof wadamada kale horumara jooga haddii uu markaasi klik siiyo. farqi weyn ayaa u dhaxeeya oo dhanka lacagta. waxaadna ogaanaysaa in Soomaaliya aan lagu xiri karin Google AdSense markaasi oo bangiyada Soomaaliya aysan ahayn bangiyo caalami ah, laakiinse waxaa laga heli karaa wadanka Uganda iyo sidoo kale Kenya oo ay Soomaali badan ku nool yihiin. laga yaabay qof qaraabadaada ama saaxiibkaada inaad u dhiibatid oo ku hayo. xirfadda labaad ee lacagta online-ka ugu badan ee laga sameeyo waxa weeye xirfadda YouTube-ka ama markaas inaad abuuratid kanaal YouTube oo aad ku soo gudbinaysid muuqaalo xiiso leh. waxay u baahan tahay joogtayn iyo sidoo kale juhdi iyadoo si joogto ah u soo gelinaysid muuqaalo tayo leh oo ay markaasi ugu muhiimsan tahay in ay yihiin waxa aad soo gudbinayso wax tayo leh ama markaasi niche-ka ugu tayada fiican aad dooratid oo aad xiisaynaysid. sababtoo ah haddii aad dooratid niid aadan xiisaynaynin oo markaasi aadan jeclayn, waxaa dhici karta inaad bilaha hore inta xiisaydid sida dad badanaa ku dhacdo aad iska dhaafto oo aad meel iska dhigto isla markaana aad ka niyad jabto. waxaad ogaanaysaa in mar walba aadan views si degdeg ah ku helayn oo YouTube-ka ay adag tahay inaad views si degdeg ah ku hesho, laakiinse waxay u baahan tahay inaad dadaal dheeraad ah gelisid. qof walbana meesha uu joogo dadaal ayaa keenay. haddaba sidee ayaad YouTube lacag uga samayn kartaa? YouTube siyaabo kala duwan ayaa lacag uga sameeyaa. haddii aanu ku bilowno midda ugu muhiimsan waa inaad markaasi fiidiyoyaal dheerdheer soo gelid isla markaana ay dadku ku daawadaan 4,000 oo jawar ama 4,000 oo saacadood, sidoo kalena aad heshid 1,000 subscribe. marka intaas heshid lacag ayaad ka samayn kartaa. waxaanaad la bigaraynaysaa markaasi barnaamijka Google AdSense ee Partner Program adigoo markaasi ku xiranaya akoon dibadda. Soomaaliya lagama ogola bangiyadeeda, laakiinse waxaa jira wadamo badan oo ay Soomaali badan ku nooshahay sida wadanka Kenya oo kale oo markaasi laga ogol yahay oo shirkadda YouTube u fasaxday. dhawaanna Facebook ayaa u fasaxday markaasi
in Kenya lacag looga samayn karo. Sidoo kale website-yada ayaguna Kenya waa caadi. Haddaba waxaa jira xirfado kala duwan oo dhanka online-ka lacag uga samayn karto, laakiinse Soomaaliya inta badan looma ogola xirfadahaasi oo waa kuwa aad u yar marka Soomaaliya aad joogto, maadaama Soomaaliya aysan ku oolin bangiyo caalami ah, sidoo kalena aysan shirkadaha markaasi adeegyadan iska leh aysan u fasixin Soomaaliya iyo wadamo badan oo Afrikaan ah. Haddaba wadamada ilaa hadda ugu muhiimsan ee Afrika waxaa ka mid ah wadanka markaasi Kenya oo Soomaaliya deris la isla markaana Soomaali badan ay ku nooshahay. Qof ehelkaaga ayaad u dhiibi kartaa si fudud ayaana markaasi halkaasi agala socon kartaa. Sidoo kale wadanka Nigeria oo ay Soomaalidu inta badan aadin asna waxa uu ka mid yahay wadamada ay shirkadaha ugu badan ee online-ka ay aqbaleen maadaama uu leeyahay address wadankaasi. laakiinse dhalinyaro waxaa idin xusuusinayaa in wax walba aad samaynaysid ama aad qabanaysid in aadan marka koobaad ka dhigin lacag. waxa aad bilaabaysid haddii aad u bilaabaysid inaad lacag ka heshid waxay adag tahay inaad markaasi guul ka gaarto. laakiin waxa muhiim ah inaad marka koobaad aad ku bilowdo waxa inaad xiisaynaysid oo ay waxaan yihiin aad ka shaqaynaysid wax xubigaaga. laakiinse haddii aad u bilaabaysid lacag aad ka heshid way adag tahay in markaasi aad hormarisid xirfadaada. waxaan rajaynayaa saaxiibayaal muuqaalkan haddii aad wax ka faa'iiday inaad subscribe ii saari doontid oo aad ku xirnaan doontid bartayda. nabadgelyo.